hay-adda maxalliga ah ee Soda ayaa gudaha magaalada Kismaayo waxa ay ka wadaa dadaalo ay raashin bisil ku siinayso caruurta iyo dadka danyarta ee ku nool magaalada Kismaayo. waa kan wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed oo mar kale warbixintan inooga soo diray magaalada Kismaayo. ayadoo wali lagu guda jiro maalmaha farxadda Ciidul Fidriga ayaa waxa wali magaalada Kismaayo ka socota dabaaldegyada Ciidul Fidriga, waxaana gudaha magaalada Kismaayo lagu arkayaa qaar ka mid ah hay'adaha maxalliga oo raashin bisil ugu deeqaya dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo. hay'adda Soda ayaa ka mid ah hay'adaha deeqda kala duwan gaarsiinaya dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo. dadka ay hay'adda Soda ee deeqda raashinka bisil ugu deeqday ayaa u badan caruur kala duwan oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee xaafadaha magaalada Kismaayo. Cabdiqaadir Maxamed Cusmaan oo ah madaxa hay'adda Soda ee magaalada Kismaayo ayaa TV-gan Somali Channel u sheegay in deeqdan ay ugu talagaleen dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo si ay ugu dabaaldegaan farxadda maalinta Ciidul Fidriga. waxaa maanta farxad weyn oo ah in maaragtay caruurtooda intaan la egtahay ay hay'adda Soda office-keeda Kismaayo Ciidul Fidriga kala qayb qaato taqriiban arday 60 ilaa 50 ku dhow يا ماركاي يوم فرحتها وساكينها ماركاي فرحتها نقلة كيف قادنا سيدا كذا شرف وسميني وحي أنت كبرنا هدولا إنه كراك إنه وسمينا برامج كاس وحقرب من السيون المساعدة صودا أستراليا. خضر محمود حريد، Somali Channel، Kismaayo.